بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu ahayd 31 bishii July 2022 sidii warbixinaheena saaka aan ku sheegnay waxaa magaalada Muqdisho nooga yimid wafdi balaaran oo ka socda fiidka oo hogaaminaya abukaataha Mawlid Mataan iyo wafdi hogaaminaya soo gaaray sidaas darteed maadaama shaqooyinkii ay bilaabanayaan oo madaxweynihii uu soo gudbiyay musharaxiintii u sharaxnaa aqalka sare qaar ka mid ah 8 kursi ee koonfur galbeed yaalay 5 ka mid ah uu soo gudbiyay beritoolana ay noo bilaabanayso shaqooyinkii muhiimka ahaa ee loogu talagalay in laga qabto marka uu soo gudbiyay madaxweynaha ayaa caawada waxaa casharo sharaf noo sameeyay labadii guddi siidka iyo fiidka madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waa la wada casheeyay waa la isbarxabeeyay maaragtay soo dhaweyn ayaa loo sameeyay maadaama guddiga siidka hore uu joogay qolada cusub ay yihiin fiidka waxaa loo sameeyay soo dhaweyn waxaa la kala qaatay warbixintii meesha ay marayso shaqada iyo shaqooyinka beri noo yaallo aad ayaa madaxweynaha wuxuu ku dheeraaday faahfaahintii waxyaabihii laga soo maray in maanta heerka la taagan yahay la soo gaaro wixii laga soo maray tanasulaad badan la soo sameeyay dabaal adeeg badan la soo sameeyay waana ilaahay mahadiisa ay tahay maaragtay in maanta heerkan la soo gaaro warbixin dheer oo halkan ugu soo koobi karay iyo madaxweynaha ka bixiyay heerarkii la soo maray casho sharaftii si fiican ayay u dhacday dhammaan guddiga waa ka mahadceliyeen sida sharafta leh ee madaxweynaha u soo dhaweeyay annagana waa ka mahadcelinaynaa insha Allah beritoolana waxaa noo bilaabanayo shaqooyinkii maaragtay doorashada sida jadwalka aan ku soo gudbinay beritoolo waxaan maaragtay laga qaban doonaa codsiga musharaxiinta maaragtay iyo shaqooyinka kale oo looga baahnaa dan markii ay shaqadooda dokumentigooda paperworkooda ay soo dhamaystaan waxaa la guddoonsiin doonaa shahaadada musharaxa maalinta ku xigtana waxaa noo bilaaban doona doorashada oo hal maalin laga wada dhigi doono doorashada iyo hadal soo jeedinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.